dowladda Soomaaliya ayaa muddo ka badan toddobaad xayiraad saartay sawir-qaadihii la socday marxuum Almaas Elman oo Arbacadii 20 bishan November lagu dhex dilay gudaha xerada Xalana ee magaalada Muqdisho. Sawir-qaade Saciid Fadhaye oo ah Soomaali haysta dhalashada UK isla markaana la soo shaqeeyay hay'ado badan oo caalami ah ayaa la sheegay in hay'adda amniga dowladda Soomaaliya ay ka qaadeen baasaboorkiisii isla markaana ay ku hayaan gudaha Xalana una diideen inuu dhoofo iyadoo aan faahfaahin laga bixin sababta loo haysto iyo xayiraadda la saaray. Saacadii ugu dambeeyay waxaa baraha bulshada olole ka bilaabay saaxiibada Saciid Fadhaye oo ay ku jiraan wariyaal waxayna dowladda Soomaaliya ku eedeeyeen in xorriyaddii ka qaaday si uu raali uusan ka ahayn ay xayiraad u saartay sawir-qaadaha iyadoo aanan loo fidin wax talo caafimaad iyo la talin ah kadib naxdintii ka soo gaartay geeridii Almaas Elman oo xilliga ay xabaddu ay ku dhacday dhinaciisa fadhisay. La taliyaha dhinaca amniga madaxweyne Farmaajo ninka lagu magacaabo Cabdi Saciid Maxamed Cali ayaa arintani ka hadlay arrintan isagoo ku dooday in Saciid uu ahaa qofka kaliya ee dhinac fadhiyay Almaas markii ay xabaddu ay ku dhacday uuna yahay markhaatiga dilkaasi. Wuxuu joogaa hotel wanaagsan oo Xalana ku yaala waan wanaagsanahay wuuna wanaagsan yahay ayuu yiri la taliyaha madaxweynaha dhinaca amniga. Intaas waxa uu ku daray inay baarayaan kiiska oo aanay sax ahayn warka laga faafinayo sawir-qaadahaasi. Haddaba maxaa laga ogyahay saxafiga Saciid Fadhaye ee lagu hayo magaalada Muqdisho? Warar iskhilaafsan ayaa ka soo baxaya xaaladda uu ku sugan yahay Saciid Fadhaye oo ah filim qaade Soomaali ah oo la socday gaariga ay saarneed Almaas Elman oo toddobaad ka hor xabaddu kula dhacday deegaanka Xalana ee magaalada Muqdisho. Qaar ka mid ah dadka ay shaqo wadaaga yihiin ayaa walaac ka muujiyay xorriyadda iyo badqabka Saciid waxaana ay sheegeen in qoyskiisa ay walwal qabaan ayna baasaboorkiisii ka qaateen laamaha ammaanka dowladda federaalka Soomaaliya isla markaana aan xor ahayn maskax ahaanna uu liito. Mawlid Xujaale oo ah saxafi Soomaaliyeed isla markaana isla shaqeeyeen saaxiibana yihiin ayaa waxa uu warbaahinta u sheegay in Saciid Fadhaye uu hay'adaha baaritaanka gacan siiyay balse aan loo sheegin sababta baasaboorkii looga qaaday iyo baaritaanka halka uu marayo isla markaana uu u baahan yahay xorriyadiisa. La taliyaha amniga qaranka madaxweynaha Soomaaliya Cabdi Saciid Muuse Cali oo ka jawaabaya eedeymahan oo baraha uu ku soo qoray ayaa bartiisa Twitter-ka waxa uu ku soo qoray in qofka kaliya ee geeska fadhiyay gabadha markii ay xabaddu ay ku dhacaysay uu goobjooga ahaa dilka Almaas oo baaritaan lagu hayo. dhinaca kale laamaha warbaahinta waxa ay la xiriireen la taliyaha amniga ee madaxweynaha Soomaaliya Cabdi Saciid waxaan uu yiri Saciid uma xirna dowladda laakiin waa jirtaa in baasaboorka laga qaaday si aanu dalka uga bixin waana sabab la xiriirta booliska oo su'aalo uga baahan. Sidoo kale xafiiska arrimaha dibadda Britain BBC-da waxa ay kala xiriirtay kiiska waxa afyeen u hadlay uu si kooban inoogu qoray ay sheegeen ama inoogu sheegay in waxaynu caawinaynaa nin British ah oo lagu xiray Soomaaliya waxaana la xiriireynaa mas'uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya.